Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayay waxaan ku jirnay casharadeenii ahaa dhufsana yare iyo dhufsana weyne. Waxaan ka soo shaqeynay dhufsana yaraha oo erey bixintiisu af Ingiriisku ay noqonayso LCM loo soo gaabiyo iyo dhufsana weynaha oo loo soo gaabiyo GCF. labadaas cashar ayaa waxaan u soo dhignay si gaar ah anagoo marna ka soo shaqeynay dhufsana yaraha cashar ka soo diyaarinay dhufsana weynahana cashar ka soo diyaarinay insha Allah taala maanta waxaan ka shaqeyn doonaa labadooda oo laga weydiinayo hal su'aal tusaale ahaan oo kale su'aasha ugu horeysa waxaan leedahay raadi dhufsana yaraha iyo dhufsana weynaha ay wadaagaan halkan waxa ka maqan ay wadaagaan tirooyinka 36 iyo 44 aan labada tiro dhufsana yaraha iyo dhufsana weynaha ay wadaagaan maxaa soo saarnaa yani LCM kana waa raadinaa GCF kana waa raadinaa ba ka dhiganta laakiin casharadeenna hore waxaan ku soo dhignay ayada LCM kaliya la raadinayo cashar aan ka diyaarinay marna GCF ka dhufsana weynaha oo cashar kaliya ka diyaarinay laakiin ka soo qaad ardaygu wuxuu weydiin karaa bal hadii hal su'aal laga weydiiyo labadooda hadii labadooda soo saarno dhufsana yarahana soo saar dhufsana weynaha soo saadii lagu weydiiyo ardaygu siibu ku jawaabaya taas su'aal noqon karta marka hore waxaan isticmaalaynaa hab loo yaqaano prime factor ama prime factorization habkani wuxuu ka caawinayaa in aad si fudud u soo saardid tirooyinka mutaxan ee leeyihiin 44 iyo 36 marka hore maxaa sameeynaa marka hore waxaan sameeynaa inaan tirooyinkan aan soo saarno differentiation kooda macna tirooyinka u sii qaybsami kara inaan soo saarno ayay naga caawinaysaa haye waxaan raadinaa tirooyinka waxa dhahaynaa marka hore halkan waxaan ku qoranaa 36 halkan waxaan ku qornaa 44 xariiqitaankaas samee marka wuxuu leeyahay 36 laba oo qaybsami kara Soomaaliya ama haddaan si kala sameeyno waxa dhihi karnaa halkan 36 noogu qor 36 waxa dhahaynaa saamba dhahaynaa 44na isla ay sidoo kale waa dhahaynaa marka saa tahay waxa dhahaynaa waxa isiisa laba tiro markii la isku dhufto 36 keenaya 36 waxa keeni kara baa nidhi 4 oo lagu dhuftay 9 oo kale Soomahan hay 4 halkan 9 aan ka dhigano 4 9 maxay keenaan 4 9 waxay keenaan markii la isku dhufto 36 waxay keenaan haye waxaan labadan tirooyin mutaxan labadooda ma yihiin ma ahan way marka waxaan baareynaa waxa dhahaynaa hay 4 si kala qaybi macnaha waxa la rabaa tirooyinka mutaxan waa 2 iyo 3 waa garanaysa Soomahan marka waxa dhahaynaa 4 iyo 9 markii la isku dhufto 36 bay keenaan haye 4 si kala qaybin 4 tirooyin markii la isku dhufto 4 keenaa jira waa tirooyinkee waa 2 waa 2 iyo 2 laba lagu dhufto intee weeye waa 4 marka labadan maxay noqonayaan 2 iyo 2 waa tirooyin mutaxan hadda laba tiro markii la isku dhufto 2 keenay ma jiraan macna laba tiro madax banaan ana ka ahayn hal iyo 2 la isku dhuftay macna maahan laba tiro madax banaan markii la isku dhufto sababta hadii laba waxa keeni kara hal oo lagu dhuftay islayadii Soomahan taasna lama rabo marka 2 iyo 2 waxay noqonaysaa tirooyin mutaxan bay noqonaysaa halkan maxaa noo yeelaa 9 maxaa keena 9 waxa keena 3 iyo 3 baa keena marka waxa xaqama ku qoraysa marka 36 tiro maxaa way tirooyinkeeda mutaxan waxa way waa 2 3 iyo 3 Soomahan waa 2 iyo 2 iyo 3 iyo 3 tirooyinka mutaxan waa qorno 44 na qornaye macnaha labadan tiro 36 tiro walba ay keento 36 waxa keeni kara 12 oo lagu dhuftay 3 Soomahan ayadana waa sameyn kartaa si walba waxa ku soo baxaya tirooyinka marka 12 hoos loo sax weeye 44 maxaa keena 44 waxa keeni kara laba oo matalan 4 oo lagu dhuftay 11 hay aan sameeyno marka 4 iyo 11 yaa waxa keena 4 oo lagu dhuftay 11 ba waxay keentaa 44 haye 11 ma kala qaybin karno oo tirooyin marka laba tiro la isku dhufto 11 keeni kara ma jiraan laakiin maxaa si kala qaybin karna 4 maxaa kala qaybin karna waa 2 iyo 2 sababta 2 lagu dhuftay intee weeye waa 4
marka tirooyinka imtixaan muxuu noqday halkan waa 12 noo taala halkan 2 iyo 2 noo taala marka 44 tirooyinka imtixaan wuxuu noqday 2 iyo 12 buu noqday waa fahmaysaa ma umaynaya haddaan kugu soo cusubeen 6 tirooyinka imtixaan waxay haayeen waxa mataan tirooyinka dhufsanayaashiis wax baan baarnay 4 oo 9 lagu dhuftay 36 kanaan niri marka intaan niri waxaan 4 way si kala qaybsami karaa oo waxa weeye 2 iyo 2 waa qorna ay 9 baan si kala qaybnay 9 waxa weeye 3 lagu dhuftay baa keenta ayadana waa qorna 3 iyo 3 waa qorna 44 baa unimi 44 waxa keenta 4 oo lagu dhuftay 12 oo wax noqonaysa 44 كويتو ما قيب سنتان اللي مثلا لبا تيرو او قيب سما جيران لكن افر با قيب سنتا oo laba lagu dhuftay oo afar labadina waa qornay كويتو wankina waa qornay inta wala socotaa marka inta la marayo waxaan qornaa LCM ka qornaa LCM ki waan widi LCM ki sheeg bal yirsumahan dhufsana yarihii baa sheegina halkaana GCF ki weeyo oo dhufsana weynihii u taagan yahay taa casharadina hore ku sharaxnay hadii aad casharada hore daawan dib u daawo markaas baan ka fahmi karaa marka LCM ka maxaa baarinaa LCM ka tirooyinka isku midka oo dhan hal xaba ka soo qaadana laba Soomahan laba way wadaagaan Soomahan xabad ka soo qaado macnaheedu intaan weeye labadan tiro labadan maxay way wadaagaan Soomahan xabad ka soo qaado labadana way wadaagaan xabad ka soo qaado oo lagu dhufto dhahaysaa labo laakiin tiri mi wadaagaan maay tiriga soo qaado tiriga lagu dhuftay tiriga ma wadaagaan macna waxa la rabaa 36 iyo 44 tirooyinka wadaagaan xabada ka soo qaadanaysa tusaalahan kay laba halkan taala laba taala xabada ka soo qaadanay halkan laba taala xabada ka soo qaadanay hay halkan tiriba yar halkan tiriba yar maay xab soo qaado marka haye lagu dhufto dhahaysa halkan tiriba yar maay tiriga soo qaado haye halkan kooytoon baa yaala halkan kooytoon ma yaalo macna tiradan 44 kooytoon baa yaala halkan kooytoon ma yaalo maay ayadan ku soo dhufo يعني هذا كوسو قابيو تروين كان مع إسكمديهن مع لبضان تروين كإسكمد كيهين حبضة كسو قادنا ساعة تروين كيكل دويهن وسو قادنا ساعة سائل فهمه هي أنا سكول فنا ما كلابا لبا لو قلت يو أفر لبا لو أفر لو قلت صدح ولا بيتون صدح لو قلت حكا لبا لو قلت أفر لو قلت صدح ولا بيتون صدح لو قلت صدين لح لو قلت كويت ونا وصدح بقول سياشن يلحوي LCM كود محو نقضة 396 بو نقضة هي GCF كود محو نقونيا GCF كود وحو نقونيا أرضي أوغادا تروينك أي اسكميد كيهين كليلي نقونيا ومتقنا حبدي ولا بدي حب اسكميد حبد لغا سو قاداني تسالون كاي halkan laba taala halkan maxay yaal labo hal xaba ka soo qaado هي halkan maxay yaal labo halkan maxay yaal laba yaala xabad ka soo qaado oo calaamada isku dhufashadii ogti maxaa soo qaadana 2 iyo 2 sababtoo ah kan 2 haystaa kana 2 haystaa maxaa ka soo qaadana marka labadan xabada ka soo qaadana halkana 2 baa yaala oo 36 buu leeyahay kana 36 buu leeyahay 2 baa ka soo qaadan laakiin 3 mi wadaagaan maay kan 3 buu leeyahay kan 3 ma lahan kan 3 buu leeyahay kan 3 ma lahan kan kooytoon buu leeyahay kan kooytoon ma lahan saddex kuwa iska deeyna marka muxuu LCM kooda noqon GCF kooda dhufsanay weyn muxuu noqonayaa laba lagu dhuftay oo ah 4 laba lagu dhuftay muxuu noqonayaa 4 waa GCF kooda dhufsanay weynii weeye kulligood ma taqaan marka laga reebo tirooyinka isku midka oo xabad laga soo qaatay ma ahane tirooyinka ku duwayna soo qaadanay maxay noqday LCM ku muxuu noqday 396 waa fahanteen ila fahan mar walba tirooyinka isku midka ee tirooyinka wadaagaan maca 36 iyo 44 tirooyinka wadaagaan xabada ka soo qaadanaysa tirooyinka ku duwayna waa soo qaadanaysa markii la joogo weeye LCM ka weeye baarisid laakiin marka GCF ka joogtid maxaa sameynaysaa waxa sameynaysaa tirooyinka isku midka yihiin ba midkiiba labadii xabo midba ka soo qaadanaysa hada soo kale laba way wadaagaan xabad ka soo qaado laba way wadaagaan xabad ka soo qaado isku dhufo maxaa weeye 4 bay noqotay saasa ku xalinaysa tusaalaha nagu sixiyo waxa weeye raad dhufsana yaraha iyo dhufsana weynaha ay wadaagaan 42 iyo 70 isla sidii ba sameynaysa 42 soo qaado halkaana wax soo qaataa saan dhayba dartid isku soo dhigmo kore iyo 70 هذا هو قرينا هذا علامة خاصة من الحدود أفرتن يلبو سام بدهنا هكذا أتضبطنا سام بدهنا أفرتن يلبو تروين كينا شيء أفرتن يلبو حكينا أرضي وحكم ده
toddoba iyo lix baa ka mid ah toddoba iyo lix sababta toddoba marka lix lagu dhufto intee keentaa afartan iyo waxa dhigi kara xataa laatay ko laba lagu dhufto dhigi kara macnaha ay nooc oo mataqan laba tiro oo marka la isku dhufto afartan laba keenaya raadinaysa si doonta noqoto toddoba oo lagu dhufto lix intee weeye toddoba oo lagu dhufto lix waxa weeye afartan labo toddoba ma qaybsantaa may sidaas bay ku tahay tiro mutaxan waxa habka isticmaal ogaada arday waa brain factors waa brain factorization isticmaal macnaha tirooyinkan waxa raadinaa tirooyinkooda mutaxan macnaha labadan tirooyinkooda mutaxan baa raadinaa tirooyinka mutaxan la markay ka bilowdaa lambar labo ka bilowdaa ogaada soo socdo haye toddoba mataqana waa calaamad soo ta tiro laba tiro marka la isku dhufto toddoba keenaya jira may macnaha tirooyin hadda hal mar nii sheego tirooyinka mutaxan waxa laga wadaa tirooyinka mutaxan waxa laga wadaa waa tiro ayada iyo hal la isku dhufto kaliya macnaha waa tiro ka timaada markii la isku dhufto ayada iyo hal la isku dhufto tusaalahaan kale lambar labo maxaa keena lambar labo wuxuu ka yimaadaa hal oo lagu dhuftay lambar labo tiro keenta miya jidha lambar labo may haye lambar saddexna wuxuu ka imaadaa hal oo lagu dhuftay saddex waa waxa keenta saddex toddobana hal lagu dhuftay maxaa toddoba oo toddoba keenta laakiin afar maxay noqonaysaa afar tirooyin dhaban bay noqonaysaa sababtoo ah laba isir bulee samahan laba isir baa keena oo maxaa ka mid ah macnaha hadduu hal iyo afar lagu dhuftay afar wuu keenaa samahan laakiin tiro kala keento ah laba lagu dhuftay saa darteed kan tirada maxay leedahay macnaha hal dhufsan wax ka badan bay leedahay samahan sida tirooyinka waxay noqonaysaa yiraahdo maxaa dhaban oo kale bay noqonaysaa haye markaa saa marka tahay toddoba waa tirooyinka mutaxan lixna lix baa qaybsami kadhaa lix maxay ka imaan kadhaa lix waa tirooyinka dhaban weeye casharada insha allahu tacaala waan sharaxi doonaa mar baan diyaarin doonaa lix wuxuu ka imaadaa saddex oo lagu dhuftay labo saddex labo lagu dhuftay intee weeye waa lix marka saddex labo iyo saddex iyo toddoba saddexdaas maxay yihiin waa tirooyin mutaxan weeye marka waa qoraysaa lambarkee weeye lambar waxa waa afartan labo waa mar kan u yar oo hormari waa labo saddex iyo toddobo tirooyinkaas weeye waa kan toddobadan labadii iyo saddexdii hay toddobaatan kala qaybi toddobaatan maxaa keeni karaa toddobaatan waxa uu soo gaabin kara waxa dhigi kara waxa keeni kara 10 oo lagu dhuftay toddoba dheh iska dheh 10 oo toddoba markii lagu dhuftay intee bay keentaa toddobaatan bay keentaa haye toddoba miyuu matana qaybsamaya may faraha ka qaad haye 10 wuu qaybsami karaa samahan maxaa weeye waa 2 iyo 5 2 iyo 5 weeye 2 5 markii lagu dhuftay waa 10 marka kuwaana waa taas waxay ku yihiin tirooyin mutaxan bay sidaa ku yihiin saa darteed waxa dhahaynaa labadii qorana labadii noo qor labadan noo qor labo haye shantana noo qor toddobadan noo qor saa markaa tahay waxa dhahaynaa LCM ku muxuu noqonayaa GCF kuna muxuu noqonayaa tirooyinkan waxay u taagan yihiin waan is sheego samahan LCM ku wuxuu taagan yahay dhufsana yaraha kana dhufsana weynaha marka xalay LCM ka marka raadinno tirooyinka isku midka maxaa ka soo qaadanaa hal lamar waa ka soo qaadanaa hadda maxaa isku mid ah 2 iyo 2 xabad ka soo qaado maxaa kale isku mid ah 7 iyo 7 waa isku mid laakiin u noqon oo imaan doona hay tiri ma ku kala duwan yihiin xaan tiri bayaal halkan 5 bayaala oo xagan wax tiri ama yaalaan tiriga soo qaado lagu dhuftay tiri dheh halkan ina 5 wuu yaalaa 5 ku kala duwan yihiin 5 soo qaado macnaha tirooyinka isku midka xabad ka soo qaado tirooyinka kala duwan yihiin soo qaado hada tiriga ku kala duwan yihiin oo soo qaadanay 5 ku kala duwan yihiin waa soo qaadanay todobana way iska mid yihiin xabad ka soo qaada marka ma dhahaysid toddoba lagu dhuftay dhigmeys hal xabad ka soo qaadanaysa haye GCF kana u imaan doona laba saddex lagu dhuftay intee weeye waxa weeye 6 5 lagu dhuftay waa 30 70 lagu dhuftay maxay tahay 70 lagu dhuftay toddoba eber lagu dhuftay maxay weeye waa eber toddoba saddex lagu dhuftayna waa 22 maxay noqotay 210 dhufsana yaraha muxuu noqday dhufsana yaraha ay wadaagaan 42 iyo 70 waxa weeye 210 arday si ogaada dhufsana yaraha ay wadaagaan 42 iyo 70 muxuu noqday 210 buu noqday haye GCF koodu muxuu noqonayaa GCF koodu ama dhufsana yaraha waxaan ku sheegnay in labadii tiro isku mid ah hal xab laga soo qaato kuwa ay ku kala duwan yihiin laga tago baan ku sheegnay Soomaaliya haye 2 iyo 2 oo iska kamid yihiin xaan laba taala halkaana laba taala xabad ka soo qaado marka
oo calaamadii loogu dhuftay dheh saddex ba halkan taala halkan shan baa taala ku kala duwan yihiin faraha ka qaad halkan toddoba taala way iska miyiin Soomahan xabad ka soo qaada marka hay isku dhuf marka laba toddoba lagu dhufto waa intee waa 14 14 ka muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa dhufsana weynaha ay wadaagaan 14 waa 14 weey labada u qaybsamaa haye dhufsana yaraha ay wadaagaanna waa 210 sidaas ku ogaada arday waxa jiri ka dhaa oo kale turooyin adan heli karin GCF kooda dhufsana yarahooda waa heli ka dhaa laakiin adan heli karin dhufsana weynaha ay wadaagaan tusaalahan oo kale waxa lagu yiraahdi dhufsana yaraha iyo dhufsana weynaha ay wadaaga waxa kooda dhufsana yaraha dhufsana weynaha ay wadaagaan marka laga sheekeynayo turooyin qaabkan de tusaalahan 10 iyo 21 oo kale 10 iyo 21 LCM kooda waa heli ka dhaa taa ka soo LCM ku turooyinka kul duwan xataa isku dhufan ka dhaa tusaalahan oo kale aan raadina marka hore 10 maxaa keena 10 waxaa keena 2 iyo 5 baa keena hay 21 maxaa keena 3 iyo 7 keenay haddii rabeen dhufsana yarada raadino de kul isku dhufana Soomaa 2 5 lagu dhufto waa 10 10 3 lagu dhuftay intee weeye waa 30 7 lagu dhuftay 21 noqon Soomaa 270 noqon 2 5 lagu 10 10 3 lagu dhuftay waa 30 lagu dhuftay intee weeye waa 210 buu noqonayaa dhufsana yarada haye laakiin waxaan heli karin waxa loo yaqaano maxaa GCF kooda sababta GCF ka maxaa ku sheegnaa waa laba tiro ay waxaan niri waa tirooyinka isku midka Soomaa hal tiro isku mid yihiin miyaa ka jira waa kan si kor kugu qoro 10 qor 20 ku qor kan la waxa qor 2 agana waa 5 kana waa 3 iyo 7 laba tiro ay isku mid yihiin miyaa jira arday maay labo waxaan laba taala halkan 3 baa taala ku kala duwan yihiin halkan 5 baa taala halkan 7 baa taala way ku kala duwan yihiin oo la wax ku sheegan GCF ka maxaa lagu helaan ku niri waa labadan dhinac tirooyinka iska mid ka yihiin oo hal xab laga soo qaatay oo la isku dhuftay labada ba waxa lagu helaa sanad kale 2 iyo 2 halkan taala xabad ka soo qaado halkan 7 iyo 7 taala xabad ka soo qaado halkan maxay yeelay 3 baa yar waa ka tagana soo ku kala duwan yihiin laakiin halkan ku kala duwan yihiin halkan macna wax inta tirooyin iska mid yihiin ma jiraan marka saa ay tahay GCF ku muxuu noqonayaa arday wuxuu noqonayaa dhufsana weyne wuxuu noqonayaa hal buu noqonayaa arday sa ogaada marka ay weydid halkaana iyo tirooyinka markay iska mid ka noqon waayaan tiro ay wadaagaan GCF ku ama dhufsana weyne wuxuu noqonayaa hal sababtoo ah tirooyinkan waxay ka midaysan yihiin hal bay ka midaysan yihiin sababtoo hal tirooyinku dhan u qaybsan Soomaan hal 2 lagu dhufto waa 2 hal 5 lagu dhufto waa 5 hal 3 lagu dhufto waa 3 hal lagu dhufto macna hal dhufsana hal tirada la yiraahdo kulligood u qaybsantaa Soomaan kulligood u qaybsantaa hal loo qaybiyay laba hadii noqoto wax noqonaya garanaysa hal 5 loo qaybiyay marka tirooyinkaas oo dhan maxaan niri waxa u qaybsama hal ba u qaybsama marka darteed GCF ku wuxuu noqonayaa hal buu noqonayaa waa goorma waa marka weeyid labada tiro ee lagu weydiiyay dhufsana yarahooda dhufsana weynooda raadi hadii aad ka weeyid ma taqana tiro ay wadaagaan macna tiro ay ka dhaxaysa labada dhinac hadaa weydid markaas wuxuu noqonayaa hal buu noqonayaa sida ogaada insha Allah ta'ala 10kan nagu sii xiga ayaan mataqana noqon doona kuwa mataqana si fiican ugu soo faahino tirooyinka imtixaan iyo waxay yihiin tirooyin dhaban insha Allah ta'ala sidaas ku faahin doona adina waxa sameeyay ardayow inaad example badan ay sameeysid prime factors ka isticmaalaya saas tirooyin badan aad ku sameeysid insha Allah ta'ala ku fudaanaysa sidaas ku duwanaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh